السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي مي في عنتين أفر بلاد كهر dhacdo ingiriiska dhacday 2002gii laba gabdhood yaryar Jessica and Holly la dhahayo oo maxaa la dhahaa la dilay markii dambena la gubay la qariyay oo la arki waayay meelay ka baxeen la ogaan waayay labadaas gabdhood oo maxaa la dhahaa dhibaatadaas xoog badan soo gaartay ninkii waxaas ku sameeyay 3 saacadood saacadna la taagan yahay oo bishii ay 7 tahay March oo maxaa la dhahaa 2026 amareyno 3 saac ka hor isbitaalku ku dhintay wuu xirnaa ninkaanitood gaal shiruu ku jiray programka started 4 bilood ka hor aan soo suubiyey maxaa la dhahaa please soo fiirso complete si aad u aragtid asigoo ah sheekadiisa laakiin hadda waxaan ku sheegayaa sidii oo u dhintay iyo ninkii reerkiisa wax jawaab ay ka bixiyeen ninkan waxaa la dhahaa Ian wuxuu gaal shiruu ku jiray waqti dheer oo gaal shiruu ku jiray ilaa 2002gii hadda ka hor dhowr jeer la soo ataagay gaashira dhexdiisa lagu ataagay wadankan ingiriiska jeelkooda waxaa ka dhaco dad waxaa ku jiraan oo lagu xukumay inay meesha ku jiraan ilaa ay ka dhintaan marka dadkaasitood waxaa adduunka loogu necab yahay inta dadka ilmaha yaryar oo dhibaatada soo gaarsiiyeen haddii meesha la keeno badanaa waxaa dilo dadka meesha ku xirnaa dilo laba jeerba ayaga ma ka baxayaan meeshan way ku dhimanayaan haddii hataa la geeyo maxkamad dadkan xirxiran haddii maxkamad la geeyo oo meesha inay ku dhintaan loogu talagalay wax kaloo lagu zaa'idin karo ma laha meesha ugu dambeeya taagan yihiin malaga unbay meesha ku sugayaan ciyaalka yaryar dadka foolxumo kusoo subiyaan oo meeshaan la keeno waa la qaarijiyaa sida ugu dhaqsaadana la qaarijiyaa ninkan waaba ku daahibo marka ninkan 2 jeer horaa lasoo ataagay marne dhuuntaa mindi lagu gooyey mauna dhimani wuu ka fakaday marne waxaa lagu sameeyey biyo karkaraayo aa wejiga loogu shubay ma dhiman hadda markaanayto waxaa la sameeyey jugta uu ku dhinto ugu dambeysay waxay ahayd nin asigana saasoo kale oo meesha ku jiro oo ilaa uu dhimanayo ku jiri doono oo Anthony Russell la dhahayo ninkaasaa wuxuu sameeyaa la yiri wuxuu samaystay gaashir marka lagu jiro dadka waxbay samaystaan biro iyo wuxuu isku xeertay madaxu kaga garaacday marka jugtaas sida maxaa la dhahaa oo ninka hadda ku dhintay ilaa iyo bishii hore February wuxuu ku jiray isbitaal saaka oo bishii 7 tahay March bis waa yahay 3 saac ka hor waxa la dhahay Ian wuu dhintay marka reerkiisa saakay interview laga qaaday oo newska lagu soo deeyay reerkiisa waxaan ka hadlayaa intuunan maxaa la dhahaa oo gabdhahan uu dilin oo macallimada gabdhahan inta oo galaaskooda caawinta intuunan saaxiib la noqonin wuxuu saaxiib lahaa haddana 30 sano muunan gaarin markuu faacilkan soo binaay laakiin markuu yaraayo 20 sano wiil uunan gaarin baa maxaa la dhahaa gabar ay saaxiib ahaayeen oo beebi u dhashay baa la wareysto waxa la ka warama Ian waa nafgooyay wuu dhintay gabadha la weydiiyay marka hore gabadha waxay tiri aabahay wuxuu ahaa shaydaan weyn oo dadka maskaxda ka qabsado dad masaakiin dhibaato gaarsiiyay gabdhahaas dhibaato gaarsiiyay waalidkoodna taariikh ku reebay annagana taariikh nagu reebay dhaxtintaasitood naarta beerska ugu xun oo loogu talagalay buu u socdaa aabahay inuu dhintane waaba ku faraxsanahay oo adduunkan ka tago waxaa la weydiiyay marka gabadha hooyada la weydiiyay waxay tiri ninkan inta Ian naartaba xataa hadduu galo way ku yar tahay meel ka sii xun naarta inuu galo baa ficlaan lahayd farxad weynna maxaa noo maanta inuu adduunka ninkaas nooga tagay oo wejigiis dambe aan arki doonin magaciis dambe aan maqli doonin yacni dhibka weyn oo u geystay labada gabdhood yar oo 10 jirka ah siduu u baabi'iyey gabdhihii xataa lafahoodii waa la fahmi waayey ilkaha unbaa laga fahmay marka dambe ilkahooda waxaa laga fahmay dhicaankooda inay gabdhahaas yihiin waxaa laga qaada DNA laga qaada ma ahayn gabdhaha wuxuu u gubay si yaab leh sahdaayoni hore nagu soo sheegay haddii aad rabto inaa maxaa la dhahaa qisadan ogaatidne 4 bilood ka hor maxaa la dhahaa kasoo hadlay isigoo complete ah marka gadaal u noqo adoo aad u mahadsan soo fiirso adduunka waxaa jiro dad oo maxaa la dhahaa ka abuuran lafahooda xumaan accident yar oo dhacaa qof aad jugsiisid qof aad isdagaashid qof aad madax isqabsataan xataa qof oo bistoolo xataa lagu dhufto ama mindi lagu dhufto waa la arkay laakiin ilmo yar meel socdaan oo inaa qabsato oo aad taxaarta ku samaysid haddana aad gubto oo weli aad maalintii la raadinayne wuxuu ahaa dadka ugu maxaa la dhahaa caloosha xun oo wejiga ka dhigayay inuu maxaa la dhahaa miskiin yahay oo ka xun yahay gabdhahaas maadaama uu meelahan ku arki jiray iyagoo marayaan ninka ka xun
وها ورادينايو عسكرتيو لسعودي dadka meelaha laga raadinayo la socday caadi wuxuu ahaa qof oo dadka la raadinayo marka askarta waxay dhaheen caadiyan dadka gabdhahaneetood xoogaa waa laga daciifay raadintooda haddii indhaha la furi lahaa ninkan wuu joogay siduu uu maxaa la dhahaa u naxsan yahay haddii la arki lahaa ninkaan isla markaas la qaban lahaa maxaa la dhahaa haddii gabdhahii noolaa xataa isla markaas tut baa laga wardooni lahaa marka wuxuu sameynaya weji inuu ku xun yahay meesha maanta la socdaa wax loo sheegaa newska dadka newska oo la hadlaaya marka ala itaxal caadiyan markii qof la fiirinayo ama dad la waayay ama dad oo maxaa la dhibaato soo gaarto waxaa la dhahay 24 saac ugu horeeyo ilaa iyo maxaa la dhahaa 2 maalmood baa waxaa la dhahay xoog in la saaro waay la ogaado dadka aad taqaanid dadka dariskaaga familka in laga bilaabo horta gurigaasaytid iyo agagaarkiisa in laga bilaabo oo xoogga la saaro dad gooni loo sameeyo mar kastaba qofka dilaaga ah ma ka dheero familka agagaarkiisuu joogaa ama familka waaye ama familka wax u dhow waaye marka maalmahanayto sidaan karaamle u fiirinaynay waxaan aragnayba tuug markaa raadinaysid tuug meel dheer ha ka raadin xaafadaada ka raadi agtaada ka raadi saaxiibadaa fiiri adduunka markaan wax la aaminaya ma laha marka saaxiibayaalow waxaan ku darsanaa meeshaanaytood in awlaadeena aan xafidano wixii kugu dhacay way kaa weyihiin laakiin gurigeena ilmaheena ku heesano wax kastana aan ilmaheena ka ilaalino mashquulka badanna iska kala yaraano caruurtana xooggeena aan saarno haddii aa xasuusataan waddankeenii dagaalka ka hor wuxuu ahaa dhibka aad u yaraa waxyaalaha noocan oo kalena ma aana maqli jirin hadda laakiin maalin kasta waxaa maqnaa dhibaato ina cunug la waaye cunug la dilay marka rabbi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa naxariistiisa waasac inuu jannata firdowsi calaa nagu wada geeyo shar iyo shaydaanne inuu naga xijaabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu